waxyaalaha socda waayahan iyo baryahan oo qawaaniin ah oo la leeyahay xeerka qoyska oo la gudbinayo la rabo wadankan in loo ansixiyo oo golaha wasiirada la marsiiyay oo golaha baarlamaanka hor yaala oo qaanuun la leeyahay xeerka qoyska xeerka jinsiga waxyaalaha noocaas la leeyahay waa wax sharciga islaamka ka hor imaanaya kuna taagan ittibaacu hawa hawada oo la raaciyo arrinkaasina waa arrin khatar ah in ummad muslimiin ah oo diin leh oo akhlaaq wanaagsan leh in loo sharciyeeyo qaanuun laga keenay reer galbeed oo aan wax lagu daray wax laga bedelay aan la arag oo la tarjumay oo kali ah culimo aan wax laga weydiin cuqaal aan wax laga weydiin ummad wanaagsan oo akhlaaq badan oo joogto aan wax laga weydiin wax ka qayb galay oo tala laga siiyay aan la arag oo sidoo yahay inta loo tarjumay la gudbinayo oo la leeyahay sharci ha laga dhigo wuxuu ku soo hoos dhuumanahayaana uu yahay see kufsiga loola dagaalamaa qaanuunkaasi ma kala yaqaan mana kala saarayo waxa la yiraahdaa nikaax sharci ah iyo waxa la yiraahdaa kufsi kulan kasta oo dhex mara laba qof oo aan ku dhisnayn rida iyo raalli ahaansho labada qof xaggeeda ka timid wuxuu u ictibaarinayaa inuu yahay kufsi inuu yahay jariimana uu yahay dambina uu yahay ومعنى ذلك وحويان نكاحي شرعي أها دحديس أيو وحو كالصورين يا قيب كم إذا إنا كفسي نقون كرت لبدا قفو إسقبة هدين الرالي إسكو أهين أو متكود متكا كلا وحكا دمعو وحويان إنا كفسي نقون إيسو جريمنا أيتهاي قف كاسنا عقاب ومتايستي تومسنا يا وحكا بدن أي نقون كرتو أيها هلكا كالصورين wuxuu ku xirayaa nikaaxi sharciga ahaa quyuud iyo shuruud aan ilaahay ku xirin kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiguna aynan ictibaarin oo baatila ayuu ku xirayaa waxa qaanuunka ku qoran haweenaydu haday ninkeeda dacwayso oo tiraahdo waa i kufsaday anoo raalli ka ahayn buu i xoogay kufsi baa loo ictibaarinaya haduu yiraahdo raalli baan isku ahayn oo halka la soo istaago waa inuu laba marqaati keenaa هديك فالقول قولها هذا الكأيضا إسكال سيء لكتيب الله قاضيا وإنه يرى مدع رالي ما إسكاجا هاي مركان شقادة قبريني هبل بأن دول تاجنا عقلك إنه عاصو كل سيقانوكا كوشقين وظلم جورأة إن كتابك إلهي سبحانه وتعالى هي الشرع إسلامك وحي إلهي يا رسول بريكيهين إن أمد مسلمين ليرى هذا قانون باللغة لقيا وحرام قطعا wuxuu arinkaasi sahlaya oo fududaynaya zinada ayuu irdaha u furaya wuxuuna ugu furaya kulan kaste oo laba qof dhex mara ama laba raga ha ahaadeen ama laba dumara ama nin iyo naag haday raali isku yihiin khalaas wax dambi ama اعتبار كلام ماله إن اللي بدو الرالي إسكيهن با مهم وكذا بس أنت أسكو قرين وحا مصيبة كلا وقانون كاكويا لو كقرن قد بدي سقطب كميدا وقدام بيا قانون كسته هي الشرع كسته وخلاف يا قانون كاس ما أنت الله قري وخلاف سن فقد أبطل وأبيت معناها نوعاسا كقرن ولا بابيي وانا لا ترتر كان باشقينا وحدقن إيه أخلاق وأخلاق ذا كحن دقن ككحن دين إسلام ككهر إيمان إيسا ضد مسلمين مالين بشيء لوكين علماء بدن باكهات الله ملك الدوان كذا واقع أو كهات الله أننا إلهي سبحانه وتعالى بنجبر النقونينا وحانون سيحينينا ضدك هوشا كهولا أما فراها كهية إلهي وبقى أمضان وحان دين تودو أقولين هاو كينين أنغو أي نغو تالا حنون ندي نغو دعي أولي أن ننكبك سنين قانون كي هورو حيرك قويس كأها أو وقت كي هورو انتلا داتي رق علماء اللقول لايي مركي إلهين رقا يضمركم مصين إلهين مصين ميلها إلهي كسين وحا كميدا دحالكا دي قودي وحا ويان أهوري اللقول لايي مصيبة دي هالكا نقر عدي
oo dalkeen iyo dadkeennu ay u baaba'een cuquubadaas aan galnay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aan uga toobad keenayno oo aan beri ka ahayn maanta in dibna la kugu celiyo muddada intaasa ka bacdi qaanuun shaydaan oo gaalo laga keenay oo ummadda muslimiinta ah diinteeda ka hor imaanaya waan uga nasteexaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqaan leenahay ummadda dhexdeeda waxaad ka noqonaysaan barmadow caaqibana ma leh ciribta dambena waad ka shallaayaysaan ilaahay uga baqa dadka waxaa gacanta ku haya inaad ummaddaa ku jidaysaan oo ku sharciyaysaan wax dhaqan geli doona boqolaal sano ka bacdi oo afcaashaas idinku lacnadi doonaan ummadaha dambe ilaahay uga baqa ku soo celiya dadka ahlulxalli walcaqdiga ah dadka cuquusha iyo culummada iyo ahlulxalliga walcaqdiga ku soo celiya u geeya waxaa ka khaldan ha idiin sheegeen oo diinta ilaahay ka hor imaanaya ilaahay uga baqa qaanuunka intaa tiro dhan hal meel oo ka mida nikaaxa sharcigaa ku soo qaadi umahayo waxaa ka mida jariimooyinka iyo dembiyada gabar 18 sano ka yar haddii la guursado waxaa loo ictibaarinayaa kufsi nacuudu billah caruur bayba leeyihiin markay 18 jiraan gabdhaha caruur bayba leeyihiin reeray ba dhaqanayaan macnaheeda waxa weeyaan haddii zina la sameeyo oo fuxshi la sameeyo oo labadaasi qof isga zinaystaan ayada jariimo ma aha 16 hadday ka jirto hadday 15 jirto wixii afcaala oo xun oo raali la iskaga yahay maya laakiin nikaax lama ogola ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inooga digayaa dadkaas hawadooda inaan raacno yahuud iyo nasaarada ah waxa ilaahay nabi maxamed ku leeyahay wa an ixkum baynahum bima anzala allah wala tattabi ahwaahum waxdarhum an yaftinuuka can bacdi ma anzala allahu ilayk nabiyullaahi muxamedow waxa ilaahay kugu soo dejiya ku xukun hawadoodana ha raacin ka digtoonow inay ku lumiyaan oo ku baadiyayaan ilaahay wuxuu leeyahay awalam yakfihim anna anzalna calayka alkitaaba yutla calayhim ina fii dalika laraxma wadikra liqowmin yu'minuun miyaynan ku filnayn inaan kugu soo dejinna kitaab raxmad ah oo waana ah ummaddan ilaahay baa u soo dejiyay kitaabkaas waa kitaab ilaa qiyaami saaca baaqi ahaanaya cid kastoo isku dayda inay wax ka beddeshana aan bedelmahayn ilaahay baa xifdigiisa iyo ilaalintiisa ballan qaaday ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون dadka jaahiliinta ah oo waxba aan garanahayn ha raacin ba ilaahay shariicada ilaahay ku soo dejiya raac innahum lan yughnu anka min allahi shay'a ilaahay xaqiisa waxba ka deeqimayaan kuwaas hadaa raacdid wax ay noo tarayaan iyo waxay dhibaato naga qaadayaan iyo wax horumar oo aan ku gaarayno wallahi bayna jirin oo billahi bayna jirin oo tallahi bayna jirin waxaan kulli baanayna qiimo iyo sharafna aan kulli leenahay waa inaynu kitaabkeena quraanka ku dhagno oo asaga ku amal falno oo asaga aan waxa weeyaan xayaatadeena iyo nolosheena asagu oo manhaj dhaba u noo ahaado dumarka wada hawshaas oo hooyooyinka oo laylan wa nahaaran u xulsul duubaya inay ummadda ku jideeyaan qaanuun faasid ah waxaan leenahay ilaahay ka baqa waa u ducaynana waxaan leenahay ilaahay ha soo hanuuniyo ilaahay ha soo hanuuniyo haddii ilaahay hanuun la maagay haddaan ilaahay hanuun la maagina shartooda ummadda muslimiinta ilaahay ka kaafo waxaan leenahay gabdhaha iyo ragga isqaba oo guryahooda nabadda ku ah oo albaabkooda hoosta ka xirtay arrimahooda waxaa waqti ha ku luminina kuwa dariiqa daadsan oo meel walba ku dayacan akhlaaqdooda hadaa raadinaysaan raadiyo kuwaas guryahoodu nabadda ay yihiin taftiish iyo hawl kale in kaga ma baahan إلهي سبحانه وتعالى هين هنونيو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقتها كل مننا كو طريقة داتسن وميل والبا كو ضيعان أخلاق هذا رادين إنسان رادي كواس غريوهودو نبدا أيهين تفتيش إيا هول كلاين كما بعد إلهي سبحانه وتعالى هين هنونيو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين
ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.